dadka u gudbinayo iyo fariinta mustaqbalka fariinta wadada markaa waa salaamatay diaspora iyo dadka waddanka jooga waa salaaman yihiin ninbaa wuxuu ku faanaa jijigala iguma iman karo laakiin waxaan u sheegaynaa annagoo gabcaha silsilayna jijig ka tegayno shacabkaygu ayna soo dhaweynayaan dastuur cadda aan ka saari doona ودنا تكيل الكشنات وكسعوا ذات قناته أيها تكترس هذا يكبه هي نفكنا يمال كلها يكون الجنتان ماشي واحد كذا عيا واحد كذا كذا هو ابن آدم قياسي كرو ما دولة إثيوبيا ده كانت إن ده اللي جاي يسن كذا وغنى يقول أنا إني نسكع إنه وحبذ الدعوة إيه إنك كمان يا الله وين متوسط الحمد لله رب العالمين عاوة ساعنا يا نور مرة تدبي قدام اللي سجيم شنت قارن اللي سجيم تقول بتشوكي يا قارن تشوكي بقى أنا واحد يروح كلام ما عندكم ترى رقم تطبق على من رقم الكار الفير البقال ولا بحكي أنا ويك يا فندق مستل باينه هلي مستل الحاجر وراها من اللي هذا الرصي الرواية اللي عليها الرصي بقى وده غالبا عشان ما ابو كادري او صعو كادري او حروه حري او كرري قدري الرواية قاعد الرصي مركو ايقوني ابو ليا يربادي هو يقال مركو ايو علي هذا ها صابلا وري دكتور سي كورنت لك ما سب كذا أبون عيرتيه بنام ويرحيه مدركة على هذا كلمة فطرية وحنا دورنا دولة إثيوبيا وحنا كدورنا حق النجم وحنا دورنا سوى ومضى كله جنية طبعا كم باكو رجالك تكتجي إلا سيداي كمبورا كتير يا ولد إثيوبيا لما نروح تلسفوا وحبين كذا حقوق النادي من دورنا إثيوبيا كرمنا ورا معك كوا سباكو حري إلا سيداي هو حاجة كل شيء فيه جاي ولا بعد من هذا كان فيها شيخ كانوا وين موسى ولا غيره شيخ كانوا وين موسى ولا غيره magacayga aniga waxaan idhahdaa maadi ismaaciil jiddo waxaana ka magacayga waxaan idhahdaa maadi ismaaciil jiddo waxaan ka tirsanahay gobolka jigjiga degmada awbare markaa dadkii odhan jiray looma dhanna waxaan u sheegaynaa hadaan Soomaali nahay oo kililka shanaad degno waan u dhannahay dubaagaana inay naga qabato dawladda Itoobiya ما شاء الله سيدا دركتان ولفريق كما قلنا فانولي سلادين بدن با تاغن aqoonyahan badan baa taagan urbajoog fara badan baa taagan halgamayaal fara badan baa taagan halkana waxay hadda garab taagan Idris taqaanaan gantaalaha waaweyn ee nuclearka oo ka soo rido maartay internetka balsagana waxaan oranaynaa laba eray odayaasha dhameeyay waxa weeyaan waxaan wataade waa isha macallina wataade waa dadkii waxay ka koonay dhamaadeen oo dhan marka odayaasha dhameeyay maxamedinu waxba laga qaban kara waxa weeyaan hadda cabdiilay halkan waa dhiso waxaas ka dhacaya xagee u socotaa hadda waa jigjiga balanteenu waa jigjiga okay balanteenu waa jigjiga waxaa dhinacan iga taagan waxaa dhinac kaamirada qofka waxaa dhinacan iga taagan suldaanka
isagana wuxuu insha Allah la wadaagi doonaa farxadan iyo farxadda ummadda shanta qaardoodba erayada uu hayo ummadda ee dhaxalka u noqonaya. Assalaamu calaykum. waxaan warsanayaa horta waxaan soo dhawaynayaa buumajoogta ama aqoon-yahanada u shaydalka wax ka cararay oo ninkanu ka eriyey iyo wax dantoodaba dantooda u baxay khaasatan waxaan weydiinayaa barofesorka la ii sheegay maraykanka wax ka dhigo maadaama uu dalka u dhashay oo aqoon-yahan yahay inuu kutubka qoray in kale walaalaha waddanka haysta iyo dalka sida ugu baabiyo taa waan ku su-aalaya barofesorka maxaase inaad wax ka qortaan waa munaasabad waa waddanka ka dhacay wax caadi ah maaha wax la eegayey maaha wax fircoon sameeyey maaha barofesor baan intaan ka jawaab dalkaad u dhalatay aqoon baad yeelatay waddankaagina waraabaa ka soo dhexbaxay reer baadiya oo derbi jiif sameeya buuxaha korontada cilmigiisa badan intaasu ah ruux walibana markuu kula dhaqmayo dhaqankuu yaqaanay buu kugula dhaqmaa aqoon ma ahayn wagaaraka aqoontooda ku sheegay barofesor wax ma ka qortay arrintaasa maxaa kaaga yaallay maadaamaad aqoon-yahan tahay waddankiisa ku soo noqday welisa ma la hadaltay wasiirada jooga waddanka gudihiisa mala kulanta wasiir markaa sugaynaa sida ku dhaqsaha badan ra-iisul wasaaraha inaan meesha ku dhufan si aan introduction soo dhawo adoon danku keentay jirin ina dalka igu soo biyootay oo ku soo biyootay oo dhibaatada socota aad ku tiri assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuxuu qabanaya dadka gabadhii waa arkaysa nadiif dhawey wax dhacay weligii ma dhicin fircoon kama dhicin wallahi kama dhicin wallahi fircoon kama dhicin wallahi وبني ادم حاضر في الصحراء فلسطيني نعوذ بالله اوكي waxaan rabaa introduction inaan ka siiyo professorka waxaan chance u yeelanay in aan raadino dhammaan aqoon-yahanka deegaanka meelkasta ay joogaan بروفيسور وكا نقلنا وبشير كده واي قطع وينك هذه فرحتي بس تحكي لي تذكر دم بس الله يعملها والله sidaan ii sheegay aqoon-yahankii deegaanka meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad waxay diyaar u yihiin inay dalka dib u celin ku sameeyaan ku soo celiyaan waxa loo yidhaha restoration in lagu sameeyo oo la soo celiyo dhaqankii haybadii karaamadii dowladnimadii iyo sharaftii ay dalku iyo dadku ay lahaayeen dadkaas uu ka mid yahay professorku insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo oo hormuud ka yahay waxaan rajaynayaa inuu laba kalmadood ka yidhaahdo inkastoo waqti casho ku jiro horta halgan baa ina hor yaalla ummad baa ina sugaysa dhib baa jira ninkana wayna dhaafi doonaa hawshuna ma yaala marka waa inaan dhammaan diyaargarownaa sidaan hawshan u fulin lahayn daacadnimaan u keeni lahayn maamul saxa oo ummadda danteeda ka turjumayna loo samayn lahaa waxaa halkan la taagan professor axmed oo aad og tihiin waxa uu mutaystay deegaanka inuu si wanaagsan ugu shaqeeyo marka bal isagana waxaan odhanaynaa kelmadaha uu dalka iyo dibaddaba uu la wadaagi lahaa iyo wixii dhaxalkii foosha xumaa uu kala soo kulmay deegaankii la kubsaday inuu kelmado ka yidhaahdo السلام عليكم horta aad baan u faraxsanahay marka koowaad halkan waxaa isku yimid joogtii eryaalka boor baan akrinaya maxay kala iyo qaran joogtii aqoon-yahanadii waxaana dhihi karaa waxay muujinaysaa inta rajo aad u weyn oo ku saabsan mataqaanaa waddankeena mustaqbalkiisa guud ahaan anu waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed inay wax ka barato waxyaabihii aan soo marray khaladaadkii naga hadda ka hor inaan wax ka baranno sida professorku uu sheegay inaan isku duunaano future-ka new generation-ka aan uga tagi lahayn inaan mireen hadda dhigno khaladkii hadda ka hor inaan wax ka baranno middaa waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed cabdiilay waxaan dhihi lahaa cabdiilay dadkii meesha iska lahaa way kaceen network ma sii shaqaynayso meesha iska tag waa ogtahay adoo hoggaan ah hoggaanka nabadgelyada dahabkii
kontrabanka ku qiimeeyay waad garanaysaa maalinka dadka dareenkoodu aad u buuxa laakiin maanta waad aragtaa aqalku dad bahasha iska ka ummadda lahayd future-keeda ha ka shaqeyso dadkan maxaa ka duwan kilka Soomaalida kilka Xabashida kilka Tigreega kilka Oromaa ee hormar reebuu maxaa ka duwan Itoobiya kale maxaa ka duwan هذه نمبر 1 هذا أبيله واحد كل العام ما سيج أسف عنه هذا البليش هذا البليش أريتهم ومش هم يدوي كعدين واديان أقوياء كده وبتشوتني هذا أسكت إيه عبو بيسو هذه ما بتشري السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أوكي حاجة waxaa isagana hadda ayna taagan maalqabeenkeena aqoonyahankeena Khadar Jibril oo runtii aasaas u ahaa saldhigna u ahaa dulmidiid oo waxyaabaha ugu badan ee dulmidiid ay ku kortay ama ay ku ballaaratay ka mid ahaa insha Allah bal erayada uu isaguna la wadaagayo بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan waa salaamay dadkan daawanaya iyo dadkan faraha badan caawa ay meesha qaalilaha isugu yimid in badan bay yiraahdeen waa afar magafe marka waxaan u sheegaynaa afar magafe waxa la yiraahdaa inaysan jirin 4 milyan way hadii ama magafe ama waxa soo ku sheeg laakiin 4 million or more actually I can say 7 million of DDSI dhammaantood waxay diyaar u yihiin dulmigii inay iska qaadaan dulmiga qaadistiisiina uu insha Allah uu soo socdaa wuxuuna imanayaa very soon marka waxaan leenahay hawl yar hawl badan iyo hadal yar innaga shaqa ay noo taalo iyagana dhaanta u taalo wasalaamu calaykum wari kama qodna faan oo lasaan idiin sheegay reer dulmidiid meel ka soo joogtaan waxa ay garab taagan saad aragtaan Cabditaar sidoo kale Jamaal iyo Sudaankii dulmidiid ee qurbaha North America waxaan ku soo dhaweynayaa inuu isaguna kelmado la wadaago Jamaal si uu balfariintiisa ugu gudbiyo kuwa dulman iyo kuwa dulmiga diiday intaba si loo xoreeyo ummadda iyo deegaanka السلام عليكم السلام يا شعب الصومالي اليوم بجوان وش ديال الصومالي وعليه والله كريم انت كنت وحماش ما في سوي من افضل بغلوق وتركنا نشوف وحكي ما دي صوره في امريكا يوروب افريقيا تشكيله قد سوا واحد باهي الدنيا وعداد تمام الصبر وهرمر وانا الدنيا وانا واحد قصدان تقوليها كل اثيوبيا wadana walaashay helaan qof walba gurigiisa uu sidoo geliya ugu noolaa sabab u noolahay waxaan u baqaynaa madaxda maamulka haysta inay dadka gaarsiiyeen xilka ka dagaalka waa mahadsan tahay Jamaal waxa ay garab taagan Cabdi Fataax waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladda Soomaalida shaqadiisii iyo ummadda isku adeeg uu hayay uga tagay dulmigii markuu adkeysan waayay iyo kale talisnimada waxaan weydiinaynaa bal fariimaha ummadda la wadaagayo iyo waayarnimadii uu ka dhaxlay kale taliska marka hore waxaan halka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan shacabka dowladda Soomaalida waqti dheer bay soo keendirbaysay assalaamu calaykum marka hore leeyahay marka labaad waxa weeyaan deegaankeenu wuxuu ka mid yahay deegaanada Itoobiya sida federalismka ee sagaalka gobol waa deegaan labaad ama hadduuna hayn ka kooban deegaanada ugu waaweyn ka mid yahay balse nasiib darro wuxuu noqday deegaan shakhsiyaad ay yeeshaan ayuu noqday wuxuu noqday deegaan xuquuqihiisa dastuuriga lagu tunto dadka wuxuu noqday deegaan dhaqankiisii iyo dadnimadiisii lagu tunto noqday wuxuu noqday deegaan ay dad ciyaar suuqyada yeeshaan wuxuu noqday deegaan haddii laga hadlo oo shakhsigu xuquuqiisa ka hadlo loogu jawaabay in xuquuqiisa meel lagaga dhaco dadka shacabka deegaanka Soomaalidu waxay u baahan yihiin in loo ilaaliyo xuquuqdooda dastuuriga waxay u baahan yihiin in loo ilaaliyo xuquuqdooda aadamiga marka waxaan halkan fariin uga fariyaa shacabka deegaanka idinka deegaan kale shakhsi ma laha kooxin ma laha
deegaanka idinkaa leh waxaad samaysaan idinkaa xaqiisana ilaashan kara marka waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inaad u halgantaan saad u heli lahayn xuquuqihiisa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada ee bilaabay inay dulmiga diidaan iyo laba iyo saddex iyo afar waxaan u mahad celinayaa shaksi kasta dhiigga dulmiga u istaaga deegaankeenu wuxuu ahaa deegaan loogu yimaado sharaf iyo karaamo oo dadku ay ka doortaan sharaftooda marka loo yimaado ay ka doortaan dhimashada laakiin maanta isbeddel weyn baa jira inkastoo dadka iminka soo noolaanayo damiirkeenna aan noolayno xuquuqdeenna dastuuriga aan u halganno isbeddelka dalka ka jira iyo maaragtay nidaamka dimuqraadiga ee federaalismka aynu xaqeenna ku raadsanno deegaankeenu wuxuu gaadhay heer dhaqankii iyo odayaashii iyo cidda laga xisoobayay wuxuu gaadhay heer gabdhaheennii sharafta lahaa la xurmayn waayo ayuu gaadhay hooyooyinkii la xurmayn waayo odayaashii la xurmayn waayo odayaa dhaqameed la xurmayn waayo dhalinyartii la xurmayn waayo koox yaroo maaragtay qoomiyadii ay marka waxaa loo baahan yahay inaynu taana gacanteenna waxaa la yidhi ninayna shantaadu kaa celin sharci kaama celin marka waxaa loo baahan yahay inaynu u halganno maaragtay xuquuqaheenna dastuuriga aynanu ku raadsanno nidaamkaas aynu maanta maaragtay aynu ku raadsanayno waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta kasoo qayb gashay 400 ee kasoo qayb galay odayaal leh ee dhalinyaro leh ee haween leh ee kasoo qayb galay aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum okay waan wala fari kama qodno waxaa jooga halgamaagii weynaa cabdirashiid halgamaagii weynaa cali labadaba waa laba halgamaa weeyaan waa u talagalay marka wuu ila taagan yahay waxaa kaloo jooga hantidhawrihii hore ee dowladda deegaanka oo markay xisaabtiisa xidhi weydayba model 6kii meel la geeyey la waayey ayuu wuxuu yidhi tani dee sharcigii way ka gudubtee waxaan u malaynayaa inaan dhinac uga istaago marka hantidhawrihiina waa joogaa adeeraa wax odhanaya waxaan insha allah kusoo dhawaynayaa markaana cabdirashiid cadnaan baan kusoo dhawaynaya bismillahi raxmaan raxiim anigu wax kale hadda ma odhan hadal ima laabna rag tashaday rag kale oo tashaday la tartama rag tashaday rag kale oo tartamayaa la tartama waxaan anigu idiin sheegayaa dadkan inay aabale gooroodin dhalin garan maayo horta ilaahay u toobadkeena dambaabina inay gooru dadkan dhalin garan mayno isagu inama dhalin aabada lagu hayo dhallinyarada waxaan u sheegayaa niyu booliska iyo kuwa deegaanka iyo dhallinyaradu khaldoo dhan waddanka idinkaa iska leh inay wuu tegaya dadkuna waa kiinni gabdhaha laynaysaan waa kuwiinni kuwa kubsanaysaan waa kuwiinni odayaasha aad caayaysaan waa kuwiinni waxaan idin leenahay war nin walowba karaamadaada ilaasho karaamadaada meediyaha dhan dawladda dhan idaacaddeeda cayda loo furayo dhaantada idaacaddanoo cay iyo dhaanta u furan wax caalamka lagu arkay maaha 5 wasiir baa cay lagu shan baa wasiir lagu siiyey cay baa 5 wasiir lagu baxiyey 7 agaasi baa lagu baxiyey lacagta kililka oo dhan taallay baa hal barkada lagu shubay qofkii soo juuda ayuu baagaan loo daraya ogaadadii iyo suldaamadii salaadiintiinni baa laga dhigay fuundiyaal laga dhigay fuundiyaal guriga intaad dhisto waxa ka soo hara garaabo ku cunaanteeda fadhi suldaanka waxaan doonaynaa inaa soo suldaana oo qabiilka madax u ah oo 4 naagood qaba oo 4 guri leh oo karaamo leh inuu gaari dhigto masaajidka wiilka diktoorka inuu cilmigiisa wax ku helo inaad qof walba xuquuqdu leeyahay helo nin walba ardaagiisa iyo beertiisa asagu yeesho aan gabadhiisa lagu faraxumay waxaanu doonaynaa magaalo qiyaama inay baabaado jidkada dhex mara magaalo qiyaama ee jidka siraadiyaado inaan baabiino dadkana xuquuqdooda inuu helo dowladda etoobiya ka rabnaa inay nagu garab istaagto wasalaamu calaykum sidaan idiin sheegay cadnaan waxaad ahayd hantidhawrihii guud ee deegaanka waxaan ogsoonnahay haddii hantidhawraha iyo maxkamaduhu ay shaqeeyaan iyo hay-adaha cadaaladda sida sharciga in uuna waddanka sida noqon lahayn maalin cad baad ka soo dhaqaaqday markuu baarlamaankii iyo maxkamadihii iyo madaxweynihii deegaanka intuba ay sharciga u hoggaansami waayeen maxaad dadka u sheegaysaa dadku in badanba waxay isweydiiyaan war meeshan hantida la iska boobaya baabuurta lagu wato
iyo inaan xisaab xidh iyo waxbaba jirin bal maxaad dadka u sheegaysaa بسم الله الرحمن الرحيم سؤال aad baad ugu mahadsan tahay waxaan u malaynayaa xilligaan anigu hanti dhowraha ahaa ma ahayn waqtigan ay masiibadu ka dhacday deegaanka xilligaa 250 milyan oo bir baan xukuumadda dhan ku maamuli jirnay waxaan lahaa hanti dhowrihii ugu horreeyey ee madaxweyne ku dacweeya musuq maasuq xilkana kaga qaadana haddaan maanta joogi lahaana maba joogeen waxaan meesha fadhiyaaba horta ma joogeen laakiin hanti dhowr way dhaaftay arrintu waxa aan rabaa inaan ka hadlaana ma aha arrintaan doonayaa inaan ka hadla ma aha hanti la lunsaday waa wax basiida wey xalayba waxa aan xasuustaa oo ka sheegayay goobta haddaynu nahay soomaalida ku nool gobolkan war dal burburay waa la dhisan karaa dawlad burburtayna waa la dhisan karaa dadkeenna hadduu damiirku ka dhinto waa khasaare weyn damiirku hadduu dhinto lama dhisi kara sida lagu dhisaa way adagta xag alloo ilaahay u gurmado mooye waxaad mooddaa marka dadkeenna inuu damiirku dhintay soomaali haddaynu nahay waxaa daliil u ah kuwaynu qabnay baa horteenna lagu kufsanayaa inuu damiirkuyna dhintay waxaa daliil u ah kuwaynu dhallay baa horteenna lagu kufsanayaa inuu damiirku dhintay waxaa daliil u ah kuwaynu dhallay baa horteenna lagu daldalayaa aqoon yahan baynu sheeganaynaa siyaasi baynu sheeganaynaa anigu muddo gaadhaysa 10 sano ama ka badan ayaa deegaanka mamnuuc ka ahaa wax dembi oo aan galayna ma jirin saacadda aan kula hadlayo 5 gaari oo aan leeyahay ayaa sharci darro lagu dhex wataa jigjiga weligay kama dacwoonin hantida shakhsiyayga maqan waxaan uga dacwoon waayey dad nooloo la aasayaan arkaya marka magaadhi baa layga qaataan u dacwoodaa damiirkaygu maysiinaya arrintaasaan ka dhiibiyey mana yeelayo ninka hanti laga qaatay waa sahalo waxaan maanta diyaar u nahay haddaan Soomaali nahay dullinimo qaadan mayno ingiriis baanu ka diidnay oo talyaani baanu ka diidnay oo faransiis baanu ka diidnay wiilal yaryar oo geeljiroon oo annagu dhalay ka yeeli mayno oo lagu iyagana waa lagu adeegsanayaa iyaga iyo inta dabada ka wadaba waanu iska celin waanu qaban waanu daldali waxaan halkan uga sheegaya waa dadkayagii waa dawladdayagii waa shacabkayagii dadka ku adeeganayana waa naqaanaa siyaasadda annaga noogama aqoon roona laakiin waxaan halkan fariin uga tabinayaa dhallinyartaa aanu walaalaha nahay aanu wada dhalannay ee dawlad deegaanka Soomaalida ka shaqaysa ama nidaamka dadka xasuuqaya u shaqaysa waxaan siinaynaa muddo aan 20 bari ka badnayn inay toobadkeen ku furan yahay intaan saacadda qiyaamaha lagu dhawaaqin wassalaamu calaykum okay wali barnaamijkaan ku jirnaaye daawadayaal meel kasoo joogtaan daafaha adduunka shanta qaaradood waxaa ila taagan haddana axmed nuur oo adeeg badan u soo qabtay dalka khaasatan waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo waa maalqabeen maalin dhaweyto dib badan ka soo gaar marka waxaan rabnaa barfariintiisa isagana uu inala wadaagayo inuu maadkuulka la wadaago asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed oo u midowday gaangis is-uruursaday oo dalkeenna xoog ku haysta markaan leeyahay waa gaangis is-uruursaday gaangis dibadda inooga yimid maaha waa geeljireheennii oo gaangis ka sameeyey cabdi maxamed cumar waa gaangiska kii dhalay wey waxaan ugu baaqayaa ummaddayda cadowgan haysta ee wejigoodoo kale leh ee dadnimadooda inuu iyaga ka mid yahay u tusaya inay aaminaan inuusan ahayn iyaga waa cadow lagu soo tuuray ha iska qabtaan anu xoogahan ogahay ma oga bini'aadamku in badan oo ka mid yihi
xogaha aan ogahay xabaal wadareedyaan ogahay kumanaan baan ogahay qabaa'il siday u dhannaayeen la xasuuqaan ogahay gabdho badan oo magacyadooda garanayaa jiro oo sidii la doonay inta loo galay haddana la xasuuqay oo la dilay ila hebel magacyadoodana cadaymahooda sharciyadan horgeynaynaa cabdi maxamuud cumarna sharcigaan horkeenaynaa dadka dembiga galayna waa isaga waxaana ugu baaqayaa dhallinyaradana gaar ahaan dhallinyarada hogaaminta liyu booliska sharafta leh waxaan ugu baaqayaa dadku waa dadkoodii cadow baa ku laayey yaynan laynin dadkooda ha difaacdaan ha ilaashadaan cadowga waan qabanaynaa isagoo keliya dembiga qaba ha qabtaan cadowga waxaa ila jooga injineer maxamuud oo ahaa agaasiga guud ee dhulka injineer maxamuud wuxuu shaqadii uga soo tegey marka gurihii loogu talagalay danyarta la wada qaata ee loo samaystay sharciyo gaar ahaa waxaan tiro ku haynaa in ka badan 8,000 oo guri ayay sii marayaan inta lagu tagrifalay inta laga bedelay taytaladii shakhsiyaad la siiyey marka bal waxaan leenahay injineer waxaad kala og tahay iyo waxaad kala qabsanayso waad maasantihiin kulli caawa farxad bay tahay in maanta qurba joogtii qaran joogtii meesha isugu jirtay aan fursadan u leeyahay sidoo kale saa uu sheegay hadda Bashiir waxaan ahaa agaasiga guud ee maalinta iyo maamulka dhulka ee dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya dhulkii agoonta waa la dhacay gurigii agoonta waa la dhacay guryo shakhsiyaad ay leeyihiin ba xagaf la mariyey tanna sharciga Itoobiya dastuurka Itoobiyana ma qabaan anu waxaan shaqada uga tegeen walaal markaan ka hadlo 8,000 oo guri oo dowladdu ay leedahay oo karaabadoosh loo leeyahay ayaa ciidama iyo biyo iyo qaraabadiisa lagu taxay dadkii oo suuqa si xoog laga saarayo dul waxaa jira ciidamada ka tageen hore ciidan macnaheedu waxa weeyaan cid kastoo Soomaaliya iyo waxaradii laga soo turtay weeyaan xerada ciidankana waxa xaq u leh cid kastoo Soomaaliya la sii weeyaan laakiin xerooyinkii jijiga ku yaalay garab case iyo tii kale maarka ay raay kaba qoyskiisu u qaybiyey waa waxyaalaha shaqada kaga tegay weeyaan waxaa naxdille oday waxaa jira waliba weligaan ilaaweyn oday macallin quraan oo shirishirika ay ardaydu siiyaan ayuu jeegayay odaygii xitaa waa laga qaatay jegadi waa laga qaatay waa oday shirishirin macallin quraan ahaa oo arday iska warinay jago uu siiyay xitaa laga qaatay marka dulmiga intaa in leeg diiniyan iyo dastuuriyanba ku meesha yaalana maaha ku Soomaaliya oo dhan maanta maaragtay ka wada xumaanayna weeyaan marka mustaqbalkan accountability ayman doonta waa laga dabi tegi doonaa insha Allah okay waxaa halkay la taagan halgamaa hure waxaad wada garanaysaan halgamaa bal ku soo dhawaada shanta qaaradood baa laga daawanayaa dadkii reer Galbeed meel kasta dadka hayjaangareeyeen oo ku daawanayaan marka 10 wiilna maxaad oran 10 milyan maxaad oran aad iyo aad baad u mahadsantahay garag horta marka koobaad ilaahay baa mahad leh ilaahayga weyna waaxidkii halkan isugu keenay muddo aan ku qiyaasaya bil ka horna annagoo 4 ama 5 aan meelahan fadhinay caawana aanan tirin karin dadka halkan joogay ee dulmadiidka ee ka soo horjeeda cadaalad darrada iyo kursiga iyo barakicinta iyo dilka iyo dhaqan baabi'inta iyo suudaan laga dagaalanka iyo garaad ceejinta iyo ugaas dilidda iyo wabaraafidda iyo maxaan ku dhahaa dhibaatada ka jirta deegaanka dadka diiday ee caawa halkan isugu yimidna tiradooda ma aqaan arrintaas aniga waxay ii tahay wax aanan soo qiyaasi karin aad baan ugu faraxsanahay 10 milyan haddaan fariin u diro 10 milyan way qaybsan tahay aqoon-yahan baa jira oday baa jira shaqaale dawladeed baa jira ciidan baa jira mid walba waxaan u dirayaa fariin ku habboon aan isleeyahay ku habboontahay isaga ciidanka booliska ama booliska waxaan leeyahay shacabkiina waxaad tihiin shacabka dadka yimid aabbihiin iyo hooyadiin iyo walaashiin iyo seedigiin iyo sodogiin weeyaan dadka shacabka ee aad u tihiin ciidanka waxaan idinka codsanayaa inaad shacabkiina ilaalisaan nin kasta oo meeshan soo mara oo madaxweynaha idinka uu idinkaga tegayaan waxaadna u noqonaysaan haddaad sarkaal tahay sarkaal baad u noqon haddaad askari tahayna askari baad u noqonaysaan baarlamaanka iyo hay-adaha sharciga waxaan leeyahay
dadkan idin soo doortay ee leedihiin baarlamaan baan u nahay u ilaaliya sharciga u ilaaliya sharafta u ilaaliya karaamada u ilaaliya dowladnimada ma aha kursiga cidna iskama laha maantana nin baa joogi berrina nin baa iman cabdi 11 nin baa ka horreysay 11 way ka dambayn doonaan insha Allah weliba mar dhow bay ka dambayn hay'adaha sharciga iyo garsoorka waxaan leeyahay waxa weeyaan waxa deegaanka ka jira waa wax aad looga yaqaaqsado inaad qof walba oo leedin keeno oo aan wax lagu hagaajin iska xukuntaan 25 ku xukuntaan 15 ku xukuntaan waxaan jirin ku xukuntaan waxaan idin sheegaynaa jeelashii iyo meelihii dadka lagu caburin jiray Itoobiya waa la xidhay jeel ogaadeenna waa la xidhi jeel ogaadeen magacaana bixiyay qofkii horreeyay lagu xidhana waanahay haddana waxaan diyaar u ahay haddaad doonaysaan inaan galo iyo inaan dhinto labadaba diyaar baan u ahay laakiin dadka sharciga u ilaaliyaan idin leeyahay halkaasaan ka dhex galo maadaama magacaa bixisay jeel ogaadeen jeel ogaadeen ninkii lagu horreeyay lagu xidhaa jeel ogaadeen dulmidiid way bedeleen waxaa laga dhigay masxabka ogaadeenaya way fiican tahay laakiin hadda marka adigu tibaadaa laga dhigi doonaa laakiin hadda waa jeel ogaadeen weli ka saarayna dadka insha Allah magaca markaana magaca sida yiraahdo waa bixin doonaa laakiin masaajid baan u bixinaynaa shacabka ma macdaraynaa weli hadda waa jeel ogaadeen waxaa ku jira aqoon-yahankayagii waxaa ku jira odayaashayadii waxaa ku jira waasiirayadii waxaa ku jira suldaanyadii waxaa ku jira gabdhahayagii taariikhda nama soo marin gabadhtaanu inay xabsi ku dhasho taariikhda nama soo marin gabadhtaana in la deldelo xayla salaasayna soo marin mingisti bayna soo marin mililix bayna soo marin dibna nooma soo mari doonto haddii ilaahay dhaa waan hubaa dadkii deegaanka lahaa wuu tashaday cabdiyow adiguna lafahaaga u tasho dadka ha caayine faanooda fari kama qodno dadka ma wada gaari karno runtii fariinta u gudbinaya waxay la jooga suldaanka waxay la jooga gudoomiyihii ururka dhalinyarada Shiniile waxa kaloo halkan ila taagan xildhibaankii ahliyagii Ali Geedi marka waxaan isku dayayaa inaan la soo koobo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idinku salaamayaa intii daawanaysa iyo intii daawan doonta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idinku salaamayaa anu mar rabo inaan bariyo iyo inaan la hadlo dad gaara inaan la hadlo dooni maayo waxaan doonayaa inaan la hadlo Soomaalida deegaanka inaan la hadlaan doonayaa jinsi kasta oo tahay waxaan rabaa inaan la hadlo waxaan rabaa inaan u sheego inaynu inagu isdulminay eena cidina ina dulminin waa inaynu xaqiiqada ku soo dhawaano waxa Ilaahay Qur'aanka ku sheegaya waxa weeye wax sugan weeye waa ayad hadda degayso oo kala weeye hadda degaysa fircoon markuu Ilaahay maartay Qur'aanka kaga xikaayooday Qur'aanka wuxuu Ilaahay fircoon ku yiri isagoo fircoon canaananin baa waxa la canaantay ummadiisa baa la canaantay waxa dina moodaa inaynu qabliyiin nahay damiir xumada markaynu qaadanay ayaa waxaynu gaadnay halkaa canaanta inaga leh quraanka Ilaahay wuxuu ku leeyahay fastakhaffa qawmahu faadaacuuhu innahum kaanuu qawman faasiqiin qomka faasiqiin lagu sheegay inaga faasiqiina dhibaatada inaga qoorta u dhiganay inaga daalimiinta gargaarnay manacana daaliman sulida calayhi dulmigeena baa lagu garaacayaa aan ka toobadkeeno dulmigeena gacmahaan isqabsanno magacyaha gaarka aan dayno Soomaalida deegaanka Itoobiya inuu nahay waxaynu wax ku noqon karaa midnimo ninka xun waxaynu ku riixi karaa ee daalimka ee faajirka diinta islaamka iyo walaalnimo iyo muwaafaqaynu ku riixi karaa hebelnimo kolkii la yiraahdo in waliba hebel buu noqon Soomaaliya midnimo aynu ku shaqeyno gacmaha inuu isqabsanno dulmiga aynu diidno Ilaahay baa inaa leh Okay, waa soo gabagabaysanaa programkeena waa gudoomiyihii dhalinyarta Shiniile laba kalmadood barbaarta Shiniile dulmadiid marka laba kalmadood baa insha Allah ku soo dhawaada waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo maanta ku faraxsan anoo la jooga ana Soomaaliya oo dhan ahna professoradii ahna dulmadiid meel wada dunida daafiga ka joogaan waxaan ogeysiinayaa ragga aan la yiraahdo warmoog wartol Soomaali meel wada dunida daafiga ka joogto mid bay tahay barbaarta Soomaaliyeed mid bay tahay waxaanan
ugu ballan qaadaya bisha Ramadaan dhexdeeda in magaalada Jigjiga iyadoo intaad ka cabsanaysay dirlaba maciisa hadii raacay maanta Soomaaliya way ku dhantay iyadoo sidaa la rabo sifa brother waxaan ku weydiinayaa maxaad u diraysaa fariin dhalinyarada dawlad deegaanka inay sameeyaan ku daydaan dhalinyarada gobolka Shinile barbaarta Shinile maxaad kala u diraysaa dhalinyarada horta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dhammaan barbaarta ku nool cid aad ka cabsataan ma laha wax laga cabsado inna laga cabsado Ilaahay bay ku yaalaan war salaad at-tahiyaadkii baa lagu jira ninka at-tahiyaadka ka baxa salaadaas ma dhanna dhamaysta salaada at-tahiyaadka kaga bixinay dhamaysta oo ku soo biira barbaarta Soomaalida ma sha Allah aad baad maasha brother okay oday ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed dulmidi ku soo dhawaadeen waxa ku daawanaya dhammaan qurba joog Soomaalida dawlad deegaanka oo dhan baa ku daawanaya maxaad fariin u diraysaa waxaan fariin u dirayaa khaasatan fariintii aan barana balgudbi khaasahan waxaan fariin anigu u dirayaa Soomaalidu waa dad isku mid ah walaalaan waa dad wax wada qabsanaya halkan madashan maanta aan joognana waxa ugu yar oo ugu gaaban dadkaas aan anigu ka soo jeedo dulmigii Soomaali way nacday waxaan leenahay ka soo qayb gala duqaydiinii aqoonyahankiinii cid walba yimaada dhowr xubnood baan caawa ku joognaa annagii baa langaab ayaad langaab naga dhigteenay dadkiina kaalay wax la qabsado dawlad sii tagaysa haddaba joogine fariinta ayaad u diraysaa fariinta degmada raaw barre joogtooda iyo qolqol joogtooda samaroon oo dhan baa la diraya kaalay dadkiina wax la qabsado waa ka dawlad deegaanka sidaasaan caawa ku dhannahay dawlad deegaanka Soomaalida aanay waxba naga dhinay annaga ugu yareen annaguna waa nagaas baaqa ugu dambeeyay u dirayna tolkay inay wax la qabsadaan dadka Soomaaliyeed yimaadaan gobolka Jigjiga hadhowtooniyo maxay ku sheekaynayaan oo ayaa way dhamaatay hebel weeyaan way dhamaatay waa afar magafa way dhamaatay ma sha Allah magafa waa ilaahay kelmadu waa kelmad fiican laakiin in xun uga dan lahaa okay waxa ila jooga gudoomiyihii dulmidiin South Africa oo isagana fariin idin la wadaagaya halka waxa idinka muuqata in dhammaan shanta qaaradood laga yimid iyadoo oo la iska kaashanaya dulmiga oo la rabo in dulmiga lala dagaalamo bismillahir rahmanir rahim aad iyo aad baan u faraxsanahay alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale dulmigii dadka daashaday waqtiga dheer jaaniska la siiyey inuu cumrigiisii soo gabaabsiyey waxaa markhaati ka ah khiyaartii oo dhan iyo shanta qaaradoodba iyo dadkii deegaanka oo dhan way kaceen dad badan oo anigu South African ka yimid dad badan oo South Africa jooga oo weli halkaa ku cabsanayaa jira sababtuna waxaa weeye ninkani waa cadow aan weli dhulka korkiisa horay Hitler xataa noocan oo kale ma ahayn waxaan waxba dhaafaynin horor ah oo waxba dhaafaynin oo wuxuu ka xishoon jirin oo aan dhargaynin oo aan horay fiirinaynin oo dib fiirinaynin oo kor dhowraynin oo hoos dhowraynin oo aan hareeraha dhowraynin misaalka waxa weeye qofku horay hadduu dhowro taariikh uu rabaa inuu reebo waxa laga qori doono yuu u fiiriyaa in uu wax fiican noqdo dib dadka Soomaaliyeed sharaf bay lahaayeen qiyam bay lahaayeen diin bay lahaayeen taariikhdoodii iyo sooyaalkoodii iyo halgankii dheeraa ummaddu soo gashay waxba muuna fiirinayn hareeraha ma dhowro qof xishooda ma aha kor ma dhowro oo Ilaahay kama cabsado hoosna ma dhowro cabdi iyo wax la halmaala ee inay godgelayaan ma garanayaan waraabo weeye dhigyacaba waxaan rabnaa inay ummaddu dhammaanteed u istaagto oo madhariga iska celiso la fariimo laba kooban ah ciidanka liyu booliiska cabdi ma aha waxa dadka dilaya wuu amrayaa waxaad dilaysaan waa dadkiinni waxaad dilaysaan waa hooyadiin waxaad dilaysaan waa walaaladiin waxaad kufsanaysaan waa dadkiinni taariikh madow baad gelaysaan waxaa ila quman jaanis baad hadda haysataan gacmaha isa saara idinku soo xidha idinkaa dadka xidhayay oo dilayay isaga soo qabta dadka u keena taariikh baad gelaysaan haddii kale taariikhdii madoobeyd baad yeelan doontaan idinkuna ee aad la gasheen isagu uu tagayaa taariikh kala hada oo gacmaha ka soo xidha dadka u keena dawladana u keena والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وسوق بقبيسنا وحيلة تاجن. جدي. جيسي. يا لباح. اللي بعنا لا قرنكا. مسكين هذا يبغى جيجك هذا. وجي جبيي دربيجي حلبان بدنا مسوكها. حلبان جدي. حلبان جدي وكان حلبان.
bal dadkii shanta qaaradood iyo nimankii laydin odhan jiray on gacanta taaga ma bidixda taagi jirteen oo mise midigta ilaan haddaad midigta taagna dhaarba u yar ekaanaysaa waxaan malaya bidixda taagi jirteen marka waxaan bal ku weydiinayaa xildhibaanadii meesha iyo qaabkaad ku soo geli jirteen idinka oo laydin soo doortay in telefoonada laydinka qaadayay bal dadka sawir ka sii meesha waxaa la moodaya inay xildhibaana meesha joogaane bal sawir sii kolley telefoonada dhan waa bisaga iska leh shacabka kolley waa ka dharagsan yihiin fulaxantii ma mooga micnaha waxaan lagu xantana waan ognahay dhibaatadu maaragtay waa mid laga siman yahay waxaad moodaa in saddexdii hay-adooda kala duwanaa maaragtay hay-addii sharci dejinta fulinta iyo garsoorkiiba maaragtay inay mid isku noqdeen hal qofna maaragtay inuu maamulo inta uu afhayeen ka hadlo in ka badan baa maaragtay la hadlaa maaragtay mas-uulka deegaanka ku sareeya waa hadlaa taasi waxay muujinaysaa maaragtay wixii maaragtay in doominad gareeyey ay hal maaragtay meeldiya noqdo mas-uuliyaddu waa ammaano maaragtay aakhirana waa lagu weydiin adduunkana maaragtay bulshadaadii waxa weeyaan samcad xumo iyo maaragtay magac xumo ayaad kala kulmay marka hawshana way soo dhammaatay maaragtay way afjarantay dadkii maaragtay bulshada way midowday waxayna u midoobeen sidii dulinimada iyo maaragtay sharaf xumada layskaga dulqaadi lahayn maaragtay shacabka ay u bixi lahaayeen maaragtay nasri shacabka maaragtay dantooda ogaana sarreynta sharciga loo soo celin lahaa marka waxa weeyaan inta ku hadhee maaragtay daqiiqadaha aan maaragtay hadlayo mas-uuliyad gacanta ku haysaay fadlan maaragtay waajibaadkaaga sidiisa u gudo maaragtay u soo noqo maaragtay waxaan waa ammaano weeyaan waana taariikh wayna isqoraysaa berrita maaragtay beyj kale ayaa maaragtay bilaabmaya marka waxaan hawshan waa ay dhammaatay dadkii waa ay midoobeen waxayna u midoobeen sida ay dulmiga iyo maaragtay dhibaatada iska dulqaadi lahayn waxaan idin leeyahay maaragtay qayrkii dhinac ka raaca ma soo raaca assalaamu calaykum mister geedi waxaan ku weydiinayaa baraadan xildhibaanada aad kaga timi jigjiga ee saaxiibada iyo ee shaqo wadaagka haydeen dulmigii aad diiday eed ka carartay maanta u shaqaynaya xildhibaanada saaxiibada maxaad halkan fariin uga diraysaa waxaan maaragtay aan uga dirayaa halkan waynu is ognahay maaragtay xildhibaanadii haddaad tihiin waxa weeyaan xaaladda maaragtay waqtigan ku sugan waan ognaya wax bulsheenna wakiil ka ahayn bulshadii maaragtay waynu qaynay runtaa fiican xaqiiqada sax masiirkoodii maaragtay kama hadalno dantoodii kama hadalno danteena ayaanu kaga hadalnaa marka waxa weeyaan inaynu maaragtay shacabkuna maaragtay muraayad baan maaragtay ku dhex jiro meel kasta caalamka waa laynaga arkayay marka waxa weeyaan good baynu ku dhacnee haddaad fadlan istaba qabtaa saddexda cisha soo socota inay istaba qabtaan baan maaragtay rajaynayaa miidiyaha ka hadlaan nin kasta maaragtay samcad iyo sharaftuna oo soo ceshado shacabkana uu run u sheego maaragtay been inaan loo sheegin assalaamu calaykum waraxmatullahi baan weydiinaya ugu dambaysa sidaan ogsoonahay kirilku wuxuu leeyahay dastuur sidoo kale xisbiga dalka maamulana dastuur wuxuu leeyahay xeer hoosaad waxaa nagu maqaalo ahay inuu cabdi inay samaysay xeer hoosaad 11 qof ay ku qoran yihiin xildhibaanadana kaa un lagu maaragtay miyaa laydin wax article aha iyo waxba miyaa maaragtay waxyaaba laydinka baaskaray muu jiraa goos waxaan ognahay baabuurtu inay lacag ka buuxdo sharciguna ma ogola marka bal sharcigan hoosaadka ah ee dadka lagu xukumay bal war naga sii sida uu hirgalay sarinta sharcigu maaragtay kow shacabka ilaalinaya waxaad ka garataa halkaa inay was sharin sharci aanay jirin oo maaragtay la daba maray waxa weeyaan jidka qarda jeexa lama odhan karo macnaha wax sharciga maaragtay wax lagu maamulo wax sharciga lagu socdaa hay-adaha kala duwan si u dhan yihiinba jidka qarda jeexa la socdaa marka taasina waxay noqotay maaragtay inay shacabkii dhibaato maaragtay ku haabsato lama odhan karo maaragtay wax sharciga meesha deegaanka ka jira marka waxaan aaminsanahay in jidka qarda jeexa la socday ciddii istaba qabanaysa hadda inay saxdo shan cisho gudahood bay maaragtay waqti ku haysataay inay taagan isaguna xildhibaan hore oo dowladda deegaanka federaalka qaybta federaalka ahayd bal isaguna wuxuu leeyahay fariiqiga aadan ayaan bal dadka la wadaagayaa xildhibaan soo dhow anigu waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka jishiya ka jira iyo waxyaabaha anigu halkan waxaan rabaa inaan kala hadlo maamulka jishiya ka jira iyo dadka uu ku shaqaysto ciidanka liyu booliska sida qaldan loo isticmaalay ciidanka marka hore waxaan u sheegayaa walaalayaal waxaad tihiin askartii deegaanka askartii dadkaad tihiin shacabkaad ka soo baxdeen in laga adeegsado wax sharci darraa waad ogtihiin gabadhii qabitaar ku dhimatay askartii waad ogtihiin walaalayaal gabadhii qabitaar lagu dilay ee lagu marjiyey dadkii loo adeegsaday askartaha inay xidhan yihiin oo xaaladdu meelay ku sugan tahay loo marka askari oo dhan waxaa u taalla xeerkaasaa u yaalla waa lagu adeegsanayaa dadkaa lagu dilayaa marka dambana waa lagu dilayaa saad askarta u bixinin ama meelaan lexaha la garaynin baa lagu geenayaa marka askarta waxaan u sheegayaa hadday liyu boolis yihiin iyo hadday boolis caadi yihiin hadday maleesh yihiin walaalayaal dadku waa dadkiinni
dadku waa dadkiinni waa dadkaad ka soo baxdeen nin walba hooyihii aabbaa dhalay abti baa lidin yahay eeddaa lidin yahay dadka lidin adeegsanaya ee sharci darrada lidinku adeegsanaya arrintaas inaad ka waantoodaan oo idinku naftiina aad ku dhimanaysaan oo asaga ninkii idin soo daray idinku dilayo marka waxaan idinka codsanayaa arrinteena iska disaan tan laba dadka deegaanka soomaalida waxaan rabaa inuu sheego meesha nidaam kama jiro dal iyo dibadba waxaan rabaa dadka deegaanka soomaalida waxaan rabaa inaan u sheego dal iyo dibadba in meesha nidaam uusan ka jirin sharci uusan ka jirin hadda wixii ka dambeeyana dadkii lahaa xukuumaddan dadka shacabka ee deegaanka lahaa inay dhiiradeen ay u soo jeedsadeen waxaanse kaloo idiin sheegaa fariin ah hadda ka hor dowlad dhexe oon u baxsanno waan weynay in badan baan u tagnay in badan baan la hadalnay anigana idin la hadlay 10 jeer baan baarlamaan ka hadlay oon idhi dadka ayagu maaha adhe inta la xareeyey ay irida lagaga xidhay maaha 10 jeer baan baarlamaanka hortiisa ka yidhi tii waxbaa ka socon waayey laakiin maanta waxaan filaynaa waqti dhow gudahood xukuumadna dhegaysanaysa oo warka ayaga maqlaysa inay jirto waxaan kaloo u sheegayaa ninka deegaanka jooga ee sharciga marna ku tumanaya marna ka dhiganaya fayska sharciga waad ku tumantay waxba kuma lihin sharcigu dambiilaad ka tahay waa inuu ku xukumo iyo waajib ku saaraya waxaan kuu sheegay inaad maanta tiraado sharciga dhufays ka dhiganaya sharcigaad hore u jabisa maanta kuma difaaci karo dowladda federaalka haddaad moodayso yaana inaad uga qorto waxaa jira qodobo dastuuriya oo haddii shacab deegaanada ka mid a uu ku kaco sharci darro sida gobofalada xuquuqul insaan in dowladda dhexe ay farageliso qodobo saxiix ayaa jira arrintaa waa inaad aaminsanaato haddii sharciga wixii hadda ka horreeyay waad ka leexatay maalmahan aad ku soo noqon weydo in annaguna aan dowladda federaalka garab u nahay in la farageliyo nidaamka aad meesha ku haystay jabhadaysa waa nidaam jabhadeeda maaha nidaam dowlad meesha kama jiro in la farageliyo oo risaasta iyo hubka iyo lacagta deegaanku leeyahay ee dadka shacabka lagu dilayo in arrintaas ay dowladda federaalka aysan ka dhowran karin indhaha annaguna aan iyada lafteeda ku daba taagan inay tilaabo qaado risaasta lacagta iyo nidaamkii dowladnimo si sharci darraa loo adeegsaday waa shaati barbar cawra loo xidhay nidaamka meeshaa ka jira marka hadda waxaan ku sheegayaa waqti yar baad haystaa madaxweynaha ayagii baa tahay inaan ku cafino oo si nabada ku noolaato yaa dhici karta haddii aad qaadato waanada iyadu haddaad maanta istaba qabato xildhibaanada qolada xisbiga ka jimcaha horjoogayaasha ka waxaan idiin sheegayaa war meesha waxba kuma haysaan meel cidlaa tuban tirin waxaa tihiin ula wax lagu garaac usha markay jabtaan waa la iska xooraa markay fiyooda geela lagu baxeeya noocaasaa tihiin wallaahi run baa idiin sheegaya wallahi noocaasaa tihiin sharcigu wuu shaqaynayaa siduu ahaa wuu hirgelayaa dembiilayaashana waa la soo qabanayaa nidaamkii cadaaladna uu dhammaystiran yahay ee tilaabada lagu qabi lahaa wassalaamu calaykum waan soo gabagabsanayna ninka dhalinyarta hadlaya dee waxaan ku soo gabagabaynayaa hadlaya kadib waxay noo soo gabagabaynaya inoona ducaynaya ugaaskii dhammaan shanta qaarood meel kastood joogtaan marka insha allah ugaaska inoogu dambaynaya ninkan aan kusoo dhaweynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan idiin salaamaya ramadaan kariim anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada addis ababa waxaan idin leeyahay salaamullaahi عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هلكن خلوا اللي جسوا تشيدنا إن شاء الله كل النظام كان هذا واسكسي صعدا وضراق صدق مركب وحلا يدنا يرضى يركع السيد ذوك لا أنا كان أقصد هلكن كا أنت لايقة قاضي وشرع يجي تشيجي لايقة هسه صدق سنة بلي وعن حنا لواتن عشر شرع يجينا ولا يقاتل إنه ولا الله اللي يهستار شبابنا ولا يروحكم مركب وحلا يهي taasi ma noqonayso sharciga ha lagu soo noqdo haddii ilaahay yidhaahdo ee waddankana dastuur buu leeyahay tan Addis Ababa iyo Jigjiga waxba kuma kala duwana marka waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada waxaan rabnaa inaan nolosha ay Addis Ababa ku nooshahay inaan ku noolaano gaadhiga Addis Ababa laga wato inaan wadanaa doonaynaa guriga Addis Ababa laga dhistay inaan dhisanaan doonaynaa inaan ganacsadayaal noqonaan doonaynaa inaan waxbarashadayada ay dhalinta halkan ay la joogaan la soo bixiyaan doonaynaa federaalka lagu soo darso aan ka la qaybsanaa doonaynaa dalka ma doonaynaa inaan guriga dulda u xidhnaano ma doonayno taana waan diidnay hadda wixii ka dambeeyana dhalinyaradu waxay tiri ma doonayno wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum warahmatullahi okay waa soo gabagabaysanaynaa meel walba ood joogtaan waa mahadsantihiin ugaaskan kusoo dhaweynaya ee suldaan cabdulaahi suldaan maxamed oo fariin inoona soo gudbinaya ducana inoo soo gudbinaya barnaamijkan inoo soo gabagabaynaya insha allah hadduu ilaahay idhaaho suldaan kusoo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullah mar dhow baan hadlay waxoogaa farganax ah oo aanan filaynin bay farxaddu iga keentay hadda waxaan doonayaa inaan idiin soo gudbiyo meel aad joogtaanba shanta qaaradood ee dunida waxa xaqiiqada ahee waddanka ka jira ma jiro qof koobi kara waxaasu wax uu yahay
nin waddanka waxaa qabsaday cilmiga locol ah oo caqliga locol ah oo taariikhda soo jireenka locol ah oo diinta islaamka locol ah oo diinta gaalada locol ah oo wax alla wuxuu dastuurka locol ah wuxuuna col lahayn una jirin waxaa ka mid ah ninkaas waxyaabuhu jideeyey weli rag badan baa hadloo ma idaashay 400 ama 500 oo gabdhood baa xafaayad xidhan oo uu yidhaa la fulo waa ninka yidhi ee ninka yeersiiyey yidhi war waxaad tidhaahdaa idahaanu fuuli jiray idaha ariga kaydaha ah idaha baa seedin noqday hadda iyo dunida oo dhan baa laga maqlay bal fadeexada waddanka usoo jidayaga waxaa jirta oo kale waa ninka yidhi wasmadiid waa nabadiid bal ilaahay baan idinku dhaariyo dhadhamiya inaa lilaahi wa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waa ninka soomaaliya oo gubanaysa kililkii soomaalida ee etoobiya ay dambideen ay ku qaxeen ay wax hargeysa tagayo wax amar tagayo wax kismaayo tagay noqdeen ma inuu dad idiin joogaad moodaysaa waa wuxuu dilay wuxuu xidhay wuxuu eriyey xaqiiqada horta waa saa waa ninka sameeyey mangista anigu waan soo gaaray hayla sidaasna qaybtii dambaan ka soo gaaray qoladana waaban arkay waa ninka ay ka suurowday aqalkan caaqil sulubow ka bax waxaa gelaya cabdigan oon aniga isu xidhno anigu xaggeen u kacay meeshaad u kaxu kaca waa xaqiiqo weyn 5 degmay ka dhacday waanu caddaynaynaa waa soomaalida waxaan u sheegaynaa wax dowladda etoobiya aan u gudbinaynaa dad etoobiyaana xuquuq baan ku leenahay dastuurka waddanku leeyahay baan leenahay yaana lagu daawanin balaayadan ummadda baabi'inaysa waa wax ceeb ah oo adduunku wada og yahay midhayaasha caalamka oo dhanna waanu sheegaynaa wax badan baan xidhannay afkayaga iyo addinkayagaba waan furaynaa dowladda horta sidaasaan u sheegaynaa dadweynaha kililka soomaaliyeed u dhashay horta kilil soomaaliyeed baa meesha la yidhaah ogaadeen iyo lama yidhaah ogaadeen ma leh soomaali oo dhan baa iska leh magacaasuna waa magac mujrim weeye magaca waddanka bi'iyey weeye waa magaca lagu ugaadhsado weeye wax ka jira male soomaali baa leh etoobiya iska leh waxaan sheegaynaa soomaalida etoobiya nacaskaa iska qabtaa waa wax dhib yar kuwa hor ordayaabeenu barqin ku qabqaban karaa barqin baan ku qabqaban karaa barqin yaan ku qabqaban karaa ogaadeen soo ka dhameeyey ogaadeen ku nool baa jira war anagu ogaadeen baa nool maanaan odhan waxaan ku nidhi daalimiinta dulman baa tihin annagaa ku nidhi waayo aygana dadkii ka qaban weydeen wuxuu wax ku qabsaday ogaadeen baan ahay bay ahayd wuxuu ciidanka ku samaystay ogaadeen bay ahayd ilaahay baa ku salliday dadkii oo dhanba maxay ahayd nabigu muxuu yidhi waxay ahayd iisoo qaba man acaana daaliman sullida calayh waa koow waxaa kaloo taalla wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa dadkii fitnadii way caami yeeshay balagada islaam weyn oo gahowday oo raggay dhashay aad u fara badan yahay iyo dumarkay dhashayba yuu dilay aarbuu yaa la warga islaanta maxaad u dishay waa islaasha qaasha hadal ayaa buu walaga daday ma islaasha qaasha hadal ayaa buu bala dibis ogaadeen raggii ogaadeen baan dhameeyey hadda isaga qiraya waxaan ku leenahay cabdiyow ilaahayna ku saamix maayo waa la hubaa waayo waad ridowday wadaad reeraha iyagoo maalin dhaweed kaa garab hadlayna waan hubnaa inuu diinta islaamka ka baxay taariikhna anaa suldaankiisi ah waan la xisaabtami doonaa hadduu noolaado adunbu ku raaci meel alla meesha adu kacdo u kici haddii lagu dilo waa la dili haddii lagu xidho waa la xidhi marnaba ma sii joogi karo ninka adiga kugu yidhi waa saxaabi diinta islaamka wuu ka baxay nimanka dhiyu booliska aan sheegaya waa dambaabteen shaydaan baad raacdeen astaqfirulaysta nakasa calaa cadibahi u odhan doonaa shaydaanku dib uu sado kolkuu arka balaayooyinka qiyaamada war shaydaan baa idin horkacaya iskaga hadha tooba keena isagay saarantahay ha raacina muddo qariibana idiin dhowdhowdahay dadkiina dad ku tihiine dadkiina u soo noqdaa assalaamu calaykum adeer intaanad inoo ducaynin waxaan dhallinyarada qurbaha ka timi waxaa jira dad qurbaha jooga oo dulmiga halkaa ka jira fariin gaadhsiinaysa iikaadi adeer iikaadi ilaa khayraad ku siiye dadka maxaad fariin gaadhsiin leh sidoo kale waxaa jigjiga jooga dad gar caddaalayaala oo ugaasiye sheegta oo salaadiin sheegta oo 80 jira ka waaweyn oo dulmiga iyo dhibaatada aad soo aragtay aad ka sheekaynayso ku raaliya iyagana maxaad fariin u diraysaa waxaan u dirayaa kuwa salaadiinta ee halkaa jooga mas'uuliyad baa saaran
ilaahayna wuu og yahay in mas'uuliyadii saaran tahay mas'uuliyaddii saaran كمد ياي وانو عذر دارينا محبوس لماذا نوجو عذر دارينا لكن كوا عملنا إنه نقانو على شغل شقيسة ياشا إلهي برزقي بحيه وعبد إليه هيو مشلا هدي إلهي رزقي كاحلنا وكاحلي هدو كدلي لو كدلي عبد إلينا مرنا كما بالبدنين كوا أنا أساسا لنا كوا قربها تشوغا قال واحد شوغا أنا غير كيجا وحكم إذا عبد القادر فرحني الليلة 7 مليون يوحو كيف سنة شدك بور يكود دقنا وكاسودت كي وين الفقراء بابور بو يبسدي استرالي يكون دفاعيا ما صعون يسو سنة والله حساب تمدونا كوا كل ما يصير مريكا كوا عبصروا إلهي ما مريكا كودي والله إلى ذا نولاني هذا تمادنا إلهي بكودي هذا مرول بوالله وحكومة واحد لا عبصنا يسو ما قرنا إنه أنا أقول ما قادنا إنه دل ما قادنا إنه هل كير شغلنا أنا وارد سوا هل كان شغلنا وحكى لنا وقت السلام بريمو يا ساتر من واحد تبدو نواجيك جيجا ساسا ندي شغلنا شغلنا الله قاف آمين والدينا الله قاف آمين الله ينوغر قالوا أخريات ما وحن ربنا الله ينصر آمين ورمضان رزق بركة الله ينصر آمين وترك الله ينقبض آمين وتقريم الله ينقبض آمين إله الله أكبر وأنهم لا يأتون يستجيب ماذا يجيب ربي يوددك نوغر ربي يوهنور أجين أفضل ورمضان إله يقوم هذا كبد بالبال آمين وقرب وشغلنا يا أنقرني أصلا فاتحة بسم الله يا وحوي فرين عضبان وهل كانوا قدرنا عبديلي ويسرع علي وسوق قبلنا برنامج إن شاء الله تعالى وحوي يعني يجوا تكتيك كسو عيتمان تكتيك كسو أي كسو عيتمان هل كان فرين عضبان وقدرنا فرين عض أيان هل كانوا قدرنا عبديلي وحيدين يا واندو واريكور قرصنتي برادا مركا وحل يجوا كم بدأوني كم إيدي بانية بارك الله ينصرنا إن شاء الله هيا إلى آخر أكو زيادة رسالة هيا ريد المدينة وانا ركتان وأقول يسرني أبي سوي كشطان تاعي بريتو أنا ودكتي ماشي والله ما قبل كرا والله يا قبل كرا ما شفته صلادينتي سياسيينتي عقاشي وضع ركتان ظلمي ما شقينا وحكودريا ويرت بشرة وحكودريا والله عاو مركال كان شغل والله وانقرض waxaan ka qiirooday dadka dhammaan dawladdeegaan ka soo jeeda oo qolo gaara aan u badnayn oo dadka oo dhan ka siman yihiin ayaa meesha joogay waxaa ka casheeyay qof kasta wuxuu uga hadlay si qeerala uga hadlay waxa weeyaan waxay u tahay fariin cad waxay fariin cad u tahay dadka wada jirkooda xultagooda iyo wada jirkooda u tahay cabdi ilay aan qish yar siiyo cabdi ilay waxay guushaada ku jirtaa midnimada dadka wad ka shaqayso waanad garan weyday ilaahayna uu waafajin waayay annaga ilaahayna waafajiyay iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed deegaanka ku nool waxa la dulmidid ha noolaado cabdi ilay ha dhaco annagu ma caayino hooyooyin ma caayino dumar la qaba ma caayino ay ma rabno intaas annaga kugu filan cabdi ilay oo cay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh okay sidaan horay u soo gabagaanay idinku sheegay dhamaantiin waa salaamantiin shanta qaarood dadka jooga meel kasta waxaa farxadii ahayd inaan caawa sharaf kula wadaago casho sharaf loo sameeyey reer dulmadiid meel kasta oo ay ka yimaadeen shanta qaaradood iyo dadkii qaranjoog dhammaan waxaad arkayseen inaan mikrofoonka aan la wareegayay oo aan dadka runtii aan time u wada helin inaan la wada hadlo dhammaantood dulmigay diidan yihiin fariinta shacabka waxaan leeyahay midnimo dawadii uu dhakhtarku qoray ee dadkeena anfacdo waxa weeyaan waa midnimo wax ka hooseeya ma laha midnimada ayaan cadaalad ku helaynaa midnimada ayaan wada noolaansho ku helaynaa midnimada ayaan dawladnimo ku helaynaa midnimada ayaan danteena ku soo ceshanaynaa midnimo ayaa ku deeqda qabiil kuma deeqo ninka qabiil u ordayo qabiil ma ahan ninka cabdi qabiil moodayo qabiil ma aha waa 12 nin oo ilmaadeer aha kuwa uu qabiil ama magac la wadaago waa kuwa uu gabdhahoodii xitaa mindi intuu u quri waayay ama xabadu ku dhufto uu ciijiyay weeyaan ma u dulqaadanayno waa gabdhaha oo intuu
u fidnooday uu yidhi halla kubsado jeelasha ku wada dhalay jeelasha ku wada duugan waxaa nasiib darro ahaa magaalada Jigjiga ama degmooyinka dhan dhammaantood habeenkii dad baa la xabaalaa maalintiina dad baa la xabaalaa habeenkii dadka la xabaalo ayaa tiro badan 10 jeer ka badan dadka maalintii la xabaalo because maalintii waxaa la xabaalaa hal ama laba arkaysaa xabaalaha waaweyn laakiin habeenkii waxaad arkaysaa cagafta dawladda hoose oo habeenkii oo dhan xabaalo qodaysa iyadoo every night xabaal wadareed qodaysa marka runtii waa yaxya documentary baa laga sameeyey min hadda aanan rabin inaan tuso oo suxufi ah ayaa documentary ka sameeyey documentarygaasna uu soo bixi doonaa insha Allah bismillaahi kariim dulmigu uu tagayaa wax yar baa u hadhay fariintayda ku aadan cabdi waxaan leeyahay horeyna aanu la hadlay cabdiyow ilaahay ayaa ku saaray mas'uuliyadda waa lagu la xisaabtamay waana lagu xisaabtami doonaa in adeero xilka si nabad ah ku soo dhiib ummadda u dhiib yacafiya dheh 100 jeer baan kula hadlay waxa aad samaynayso waa daalinimo nimanka kula talinayana dulmi un bay kula sii talinayaan dawga ayay ka sii radayaan intaas ayaan kula talinayaa aniga sida aan ummadda u sheegnay ma aytano qofna ma aynayno horeyna qof ma naan cayn waxaan laakiin u banaynaynaa wasiiradaadu inay na soo caayaan wasiiradaadu inay soo aflagaadayaan oo bimbe u yihiin waliba waan ku martiqaadaynaa laakiin waxaan ku oran lahaa wasiirada qabaa'ilada kale live-ka galaha oranine haddii aad run sheegayso wasiirada aad ilmaadeerka tihiin live-ka soo gala iyo adiguba oo kuwaas hana soo caytamaan haddaad run sheegayso wasiirada kale ee meesha joogay live-ka gala leeyahow dee shaqadiinii weeyaan oo shaqo kale ma qabataan laakiin waxaad ku xisaabtataan bal waxaad tiraan aabbo baad tirahdaan kolley bal wasiirada adiga kula dhashayna live-ka ha wada galaana maadaama live-ku uu noqday shaqadii hadda meesha aad ka haysaan dee aabba shaqadii ma qabanayaan annagii waa shaqadii qabanayne iyagana shaqada dee inay soo galaan ayaa loo baahan yahay dhe bal markaa shaqada iyagana soo gelin halkaasaan kusoo gabagabaynayaa ku-xigeenkii baan soo kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waxaan u malaynayaa dadkii way wada hadleen annaga reer dulmadiid aad baan u faraxsannahay waxaanu u mahadnaqaynaa dhammaan halkii fariina uu sheegay muxuu ahaa afhayeenku oo ah waxaan soomaalinimo ahayn oo na deeqayaa ma leh midnimaana deeqaysa wixii dadkii meesha caawa ka soo wada hadlay soomaalida deegaanku degto oo dhan buu ahaa qabiil ma uu leh wax ka dambe soomaalinimona ma deeqdo qofkii fikrad kale leh isagu bahalki muxuu ahaa shirka Minnesota sheegtay warsiiska dhacdo waxaa kale oo aan rabaa inaan idinla wadaago reer Minnesota shir ayay qabanayaan 26 bishan hadda aan ku jirno oo laga soo horjeedo dulmiga ha laga soo wada qayb galo dhammaan Jigjiga Center waxa weeye address waa 1516 and East Lake Street Minneapolis ha laga soo qayb galo cabdi waxaan ku leeyahay jagadana way kugu weyn tahay 8 milyan iyo badh 8 milyan iyo badh ma xukumi kartid waxa samaysay waa samaysay waxa dishay waa dishay waxa kufsan kartay waa kufsatay waxa cayn kartay waa cayday niyo how caruurtaada u hiili caruurtaada u naxariiso caruurtaada xumaanta hooga tagin dad hooga tagin muxuu ahaa nabad ha ku noolaadeen intaasaan ku leeyahay waxaan kaloo aan dadka u sheegayaa dhammaan inay ka soo qayb galaan dadka Addis Ababa nawaaxigeeda jooga iyo inta deegaanka joogteen nacab muxuu ahaa dulmiga 27 bishan waxaan ku qabanaynaa shir insha Allah muxuu ahaa afur casheer baan ku qabanaynaa oo aan ku qabanaynaa shirto insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo والسلام عليكم ورحمة الله. شريط هوتيل